السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة سومالية ومدة إسلام كيبا وإن السلام يا ميل كستو أتشوك تنبا waxaan doonayaa ayaamahan dhaweyta waxa socday boqor buur madow iyo nin la yiraahdo garaad jaamac miyaa la yiraahdo oo iska daba hadlay kasoo hadal isma lahayn laakiin waxaan arkaa ummadii oo qaylinaysa iyo waxyaabo kale oo sheekadii ahayn oo la soo dhixgeliyay horta cayda idinka ku horeeyay qoladiina cabaadaysa waa nala caayay cayda odaygiina ku horeeyay boqorkuna dee cay muu sheegin ba tuhum buu sheegay ma fahmaysaa tuhum buu sheegay wax dee kolley dadkaasi waa isku reer bariyo ayaga isxan og marka waxan xan xaafadaha ka jiri jirtay ayuu ka hadlay masayba ahayn inuu ka hadlo inuu iska inuu macni waxa inuu ka hadla ma ahayn odayga kale de markuu qarda jeexay macni nasabad ummadeed uu ka hadlay ayaa la sheeyuubu asaguna sheegay wixii lagu xamanayay iyo tuhumkii jiray marka waxaan arkay oday wadaada nin yiri wadaad baanahay oo maxaan ku yiraahdaa ile boqorka jeedal halala dhaco maadaama uu dad been ka sheegay inaad tiraa been buu sheegay iyo inaad tiraa wadaadow jeedal ninka halala dhaco waxa ka horeysa inaad wixii uu sheegay aad beeniso in aad ninkaasi wixii lagu sheegay inaanu ahayn in aad beeniso oo dhiig ka qaado ayaa maxaan ku idhaahdaa ka horeysa inaad tiraahdo boqorka jeedal halala dhaco waxa aad u la yaab leh Soomaalida xitaa culimadoodii mid kasta wuxuu kala soo baxayaa jeebada ayad reerkooda u hiilinaysa oo macni daa uu ku difaacayo marka horta waxa ka horeysa in qof jeedal lala dhaca tiri qof buu been ka sheegay oo wuxuu sheegay inay dadkaasi sinaysteen oo maadaama aanay sinaysanin waa in loo jeedal boqorka lala dhaca haddaan sax u fahmay waxa ka horeysa inaad wixii uu yiri beeniso oo soo cadayso marka odayga dhiig ka soo qaado oo hadday rumowdo in ay beenowdo arrintaasi markaasaa laga wada hadli doona wixii laga yeelayo ta kale waxaan arkay odaygii yaraaye garaad jaamac oo maanta fadhadhaqda geeyay iyo qoliyo kale oo badan oo baraha bulshada u fadhiya reerka oo leeyahay macni cid waliba in ha ku eegaato odaygu wuxuu yiri dirnimadiisa ha ku eegaado daaroodnimadiisa ha ku eegaado oo yaa daydaayay daarood yaa ku yiri daaroodow igu soo biir ma waxaad aragtay dir daydaaya daarood maya wixii laga hadlaya iyo waxa loo socda iyo waxa adaygu inuu ka dhacsan yahay oo fahansanayn baa marqota adeer daarood la daydaya ma jirto waxa la daydaya xuduudaynu isku haynaa xuduudii shanta Soomaaliyeed ayaynu isku haynaa cid daarood rabta oo daydaysa ma jirto aday ku taa nin kala meelaha ka qaylinay waxa arkaysan garaad kolkaas uu la shir reer heber buu la shir anaga maxaa naga galay daarood shiraya waa reer Soomaaliyeed haday shirayaan ayagay u taala laakiin xuduudda Somaliland mid laga shirayo iyo mid laga wada hadli karo toona maaha Soomaalidu waxaba in wax la isla fahmo weeye dadka u dhashay shanta Soomaaliyeed waxay degan yihiin xuduudaha ummadda Soomaaliyeed degan tahay saddex mid bay noqonaysaa xuduudda Somaliland in aad waxaynan iyo qolyihiina daaroodka sheegtaa ka guurtaan xuduudda oo dhul kale u guurtaan laba inaad deganaataan oo Somaliland ka mid ahaataan saddex inay Soomaali shirto ay xuduudo qabiil samaysato ood gaashaamo iyo xarshin iyo dulcad ka holeesho taliska ina maxaan ku idhahdaa ina cagjarna aanu ka talin inaad dhulka direed maadaama aad leedahay dir iyo daarood baynu nahay dhulka direed inaad ka guurto weeye
waxaa laga doodayaa aday rabitaan daarood ma cid rabta daarood iyo cid daydaysay cid muraad kale midna ma jiro xuduudaynu ka hadlaynaa xuduudda Somaliland ma ka guuraysaa adaa doorashada leh runta marka laga hadlo waxa weeye Somaliland xuduudeeda waa lagu qasbaysan ka la iskaga tulaya haddii wanaag lagu qaadan waayo qasab ayaa lagu qaadanaya haddii kale saddexda say mid soo galaysaa Soomaaliya waa la isu wada imanayaa xuduudo qabiil baynu samaysanaynaa xuduudo qabiil ku salaysan hadeerta mid baan arkay macnaheedu waa isjiidaysaan oo wixiina isjiidaya waxayda jecel beerka jecel hayda jecel baad ku jirtaa ummadda Soomaaliyeed hantideeda iyo dhulkeeda iyo wixeeda rabtaa wax gaarood adigu leedayna waad rabtaa dawlad Soomaaliyeed baad rabtaa mid gaarood daaroodna waad rabtaa musuq maasaqa iyo maxaan ku dhahay khiyaamada iyo maxaan ku dhahday aqal xumada aabaheed baatihi ina yaro waxaan halkaa ka harkeyle ina yar ma oday halkaa ka hadlaya oo kula eegay maxaan ku dhahday Somalidiidka sidaas in loola hadlo weeye Somali isaaq dad leeday waa Somalidiid isaaq runta ayuu Soomaali u sheegay wuxuu dawlad gaar ah baan oo banaankaas andegay waxna idin kama rabo waxna idin ma yeelo adigu maxaad la dhex joogtaa Soomaali musuq maasaq khiyaamo xaasidnimo xumaan kala furfur ayaad la dhex joogtaa haddaad matalan ku idhaa isaaqiyo daaro yaa Soomaali dhisay yaa se Soomaali burburiyey saaq baa Soomaali dhisay calankii Soomaali weyn anaa siday maalintan dhigayna wuu dhigmay daaroodka aad sheegayso ma jecliina reera iyo aflagaadeeye laakiin daaroodka sheegaysa baraha bulshada fadhiyo wiigan oo u dambeeyay ayaa xaafadiina jufooyin ka midi saddex calan samaysteen Soomaalida kala wadi kartay isu keeni kartaa waanu shirnay halkan aanu ka degnay waxaad u shiraysaa xumaan waxaad u shiraysaa in colaadda Muqdisho aad u qabto waxaad u shiraysaa colaadda aad maxaan ku dhahday diru qabto laakiin yaa muraad kale yaad wax ku yeeli kartaa maxaad noqon kartaa dir la'aantii maxay Soomaali noqon kartaa isaaq la'aantii waxba ma noqon kartid Somalidiid inaan anigu ahay yanaad adigu tahay waxa ku kala cadaynaysa anu waxaan Soomaali anigu barnaankaasaan ka baxay xuduud baan ku xisaabtamaya inta xuduudda igula degan ee ilaalihina sharaf iyo karaamaan ku wada noolaanayna dad dal wada leh baanu nahay waan idinka tagnay nabadgeliyo adigu ilaa iyo maalintii qori dable ayaad sida ugula dhex wareegaysaa nin hawiyo kursiga saaran markaad aragto ayaad mucaarad bilaabaysaa maalinta wiil daarood yimaadana muxaafid baad noqonaysaa colaadda iyo xumaanta ummadda Soomaaliyeed aad ka dhex wadan Kenya ay maraysaa dadkii Kenyaatiga ah Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ummadda Kenyaatiga ah ay dalka la leeyihiin nabadda kula deganaa ayaa maanta wadnuhu dhugtahaya idinkaana u sababa Faarax Macalin baa u sababa qori dableba abidkiin sidateen laba kaadlayaal baa tihiin isaaq ma laba kaadleeyo isaaq warcad baa loogu yimaadaa ama uu ku raacaya ama uu ka haraya adigu munaafiqnimad ummadda kula dhex jirtaa waxbaan kula leeyahay kulama leeyahay baad kula dhex jirtaa tayda lihi taadana kula lihi baad kula dhex jirtaa marka inamada le halkan aanu ku shirnay wax alla wuxuu shirkiinu tarayaa ma jirto idinka ayaa adeero imisa calan baa sidatan hadda bal soo tiri inta calan ee daarood sito
sida aydan idinku isu raacsanayn ayaydan ummadda kalena u raacsanayn xinka iyo reer hebel aan ku xumayna meel laguma gaadho qofku waa inuu go'aan lahaadaa waxana sheega kula jira ama kaa jira sidaa isaaq waa inaad bannaankaa ka baxdaa oo tira Soomaali inteeda kale shaqo kumali laakiin caalam beena baan soo huwanayaa munaafiqnimana waan macni dadkan ka dhex shaqaynaya wax alla waxa maaragtay ay idin soconaysaa ma jirto inamada le halkan aanu ka shirnay macni Somaliland u soo bu'ayo shir daarod inta in leeg isaaq yeeli maayo Somaliland yeeli maayo weligiin bashira waa idin ogolay shirkiina لكن حدود الصوماليلان كوما وقولي حدود الصوماليلان عقد انتا إلا لقى مبدلي كرام لابا مدون بين قريسا إنا النبط أي كسو نقط حدود الصوماليلان ييني سندو لكسو نقط دادك الدقال كي يرايا لاسعانوت اللغو كرابايري داد بدن يدهدن واتولة دودي هلقا بحو qaarna yiraahdeen ma ayaan looga bixin wax xuduudii Somaliland intii yareeyay ka dhacday haday dhiig kugu shubtay taariikhda dib ugu noqo adoo ciidankii Afrika ugu weyna haysta adigoo maxaan ku iraahdaayay dabaabadihii iyo dayuuradihii caalamka ugu weynahay badnaasita geeska Afrika caalamka yarada gees Afrika ciidamadii Afrika ugu badnaa hubkii Afrika ugu badnaa dayuuradii dagaal ee Afrika ugu badnaa oo aan saxar la harin ayaan har cad dharka kaaga saaray caalamka hortiisa taariikhda dib ugu noqo wax allaala iyo wax isbedelay ma jiraan wax waliba waa halkoodii dawladnimo la dhawrayay شعب رير سومالي لانا لدوري طبعا وحابا معنيه دادك قار وناق ومي دلان ولا لماذا ما يقانان وحانا مركا وإني سيدي معنيه سيدا أي ربان لولا دقمو يا هيد لكن لولا ما دقمين سيدي أهيد إن لولا دقمو يا هيد بل أكفيرسو دولة دي سياد برهن يا وحي ما أنت سومالي وين نقد بليين يا لها يا بومبولي يا أوهاسي يا كودري محن كراضي عربت كودري جماعة عربت يا كودري يا ويني يا وحكدي الساق ما كراعي وتتهاي ما هاد ضد وناقي حيتشين كرا معها وناقي ما حيتشين كران وناقي ما دقيق حمان تعديق لا xumaantay wax ku leeyin wanaag waxba kuma laha walaalo dawlad u daaro dhisi kara ma jiro waan ka tagay idinka iyo koonfurti aan wax wada lahayn guud ahaanba waan ka tagay 40 sano maxaa qabanaysaa 40 sano waxaa tagteen halkii ay koob iyo 9 joogtay inuu reer walba calan samaystaa iyo joogtaan دارات أو تشوفين إساق أما ربيلها إساق قريب كم إذا لا لك أيام محن كورا ذي طبعا على السمايستين ماذا الصومالي هو جامين كرا بين تاوشيك إنت كبين تكجوج هو جان كالصومالي هذا إساق إنتو إساق مقاين وكلا مقالان إساق أنا تاكوري السنة إيمان ما يسانا بتكي بل ما سمعنا وحي الكورين ترينو مانتا بل مانتا ما كنا قلنا ومتنا ممثل محن كنا من ندانا الصومالي وكسون قلنا سنة جديد بيسكور راعي لهيد مايا صومالي أنا إسو كيني أنا كلا دري دارودنا أبيد كي وحبنا إسو ما كيني كرو دولتنا ما سمين كرو دب ولو وريقية إسكو در أمضيد مو يعني صومالي وحي كدقي لهذا وادارود عدي بربريسي وادارود markaan taa ku leeyahay cili curaatoona wallahi kuma qabo laakiin waxa jiray runta abaaj ayaa ku sheegay hadii maanta la yiraahdo maxaan ku dhahday muqdisho xaba ka dhacay waxay yiraahdaan isaaq baa ku farxay laakiin xaqa ilaaha xaq lagu caabidan ku dhaarta kuwa ku farxa waayaga qof kale oo bila aadan inuu meel istaago oo wax noqdo
cid aan ogolayni waa iyaga marka walaal daarood Soomaali isuma keen kara asaga baan isu imanay isaaqa ku khafiifin isaaq way ka tageen Soomaaliya haddii aad wax ka tari karayso ood wax ka qaban karayso wax ka qabo 40 sano ayaa lagu sugaya ma samayn kartid reer Soomaaliyada kale dadka kale iskama ka gartaan oo furfurkaaga iyo kala furfurkaaga iyo xaasidnimadaada iyo xumaantaada ma fahmaan oo kama tashadaan sida aanu kaaga tashanay markaanu aragnay siyaad bare iyo wuxuu ahaa markaanu aragnay sida aanu kaaga tashanay ayagu kaaga tashan maayaan googa ciga leeshaas ku jiraysan ilaa abid Soomaaliland xuduudeedu waa maqadis waa qasab iyo sandulle ama daarood sheego ama cid kale sheego waxa doonta sheego wallahi waa qasab sababtu tahay xuduudda Soomaaliland waxay la daatay xuduudaha Afrika waana sandulle cid ka noqon kartaana ma jirto madaxweyne yimaan ka noqon karin kamaanta joogan ka noqon karin cid kale ka noqon karin waa sandulle ama qaada ama ha qaada